الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما أنتوا أي تاي سجالي لبعتن كبيش اللحاد كنا فربقلا فرتن تاريخ هجريجو تاريخ ذكرنا أي تاي أن لحدي بشي صدحات لو كوني سجالي طبعا حدوني أنا ندي كورمه قصاد ولا يعبله وهذا عشب بدن أن قصاد أسوأ كسابسن تاي علماء هراء ee wanaagsanaa ayay ku saabsan tahay iyo fahmadooda iyo aqligooda iyo garaadkoodu intuu leekaa waxaad moodaa marmarka qaarkood markaad fahmadooda iyo say wax u fahmayaan iyo say wax u qiyaasayaan iyo say wax u qaybayaan aad akhrido yacni in aanay bashar ba ahayn baad moodaa qisadan aan maanta doonayna inaan idinka sheekeeyaa waxay ku saabsan tahay dhaxalka nin sheekha oo culimadii hore ka mid ah ayaa waxaa u timi gabadhaas waxay leedahay sheekh walaalkay ayaa dhintay 600 dirham ayuu ka tegay 600 dirham uu ka tegay dhaxal ahaan waxa lay siiyay 1 dirham oo kaliya marka waxaan u arkaa bay tiri in lay dulmiyay sheekh cabaar buu fakiray in yar markuu fakiray ayuu gabadhii la hadlay wuxuu ku yiri gabadhay ma laga yaabaa walaalka inuu ka tegay xaaskiisii iyo hooyadii iyo 2 hablood uu dhalay iyo 12 inanay walaal yihiin iyo adiga gabadhii intay yaabtay oo ay ama kaagtay ayay tiri haa sheekh laakiin yaa ku sheegay سيبت كو قرات markaasa wuxuu ku yiri mar hadii ay sidaa tahay dhaxalka laguma dulmiin halka dirham baad xaq u leedahay sababtan ana ku sheegay wuxuu ku yiri walaalka gabadhiisu dhaxalka waxay qaadanaysaa 8 meelood oo meel 8 meelood oo meel ayay qaadanaysaa 8 meelood oo meel waxay noqonaysaa marka 600 loo eego waxay noqonaysaa 75 dirham waayahay wuxuu ku yiri hooyadaana waxay qaadanaysaa 1/6 ama sudus bay qaadanaysaa 6 meelood oo meel 600 dirham marka 6 meelood oo meel laga dhigana waa 100 halka waxa baxay 75 ay xaaskii qaadatay iyo 100 ay hooyadii qaadatay wuxuu ku yiri labada hablood ee uu dhalay ee uu ka tagayna waxay qaadanayaan thuluthan 2/3 saddex meelood oo laba saddex meelood oo labana waxay noqonayaan 400 waxaad u geysaa 100 waa 500 75 kii horena u geey waa 575 waxa soo haray 25 kaas 12 inan waxay yeelanayaan 24 oo mid walba 2 ayaa loogu dhufanaya inanta iyaduna waxay yeelanaysaa 1 oo Ilaahay baa yiri lidakari mithlu hadhil unthayayn labkii wuxuu qaadanayaa 2 dhadig dheeftood marka inamadii marka 2 la siiyo 24 ayay noqonaysaa midkeeda marka lagu darana 25 575 baad haysay 25 marka loo geeyo waa 600 oo dirham gabadhii sidaas ayuu ninkii sheekhaay caalimka ahaa oo ku qanciyay waa qiso aad markan akhriyay aan ula yaabay oo aan jeclaysay inaan idinkana bal idin soo gudbiyo